waxa ii sawiran sani ii horkeen sanadkaygii noqo sida waalidkay ii soo dhoweey hadda siriq ku jiray degdegiga saar sanadkaygii noqo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaantiin aad baan idiin salaamay bulshaweynta soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kenya, gaar ahaan caasimadda nairobi. waxaan ku suganahay magaalada nairobi, waxaana qabanayaa barnaamijka sanadka cusub oo concerti show ah 31 bisha habeenka 1 soo gelayso haddii ilaahay ka dhigo. barnaamijku wuxuu ka dhacayaa Diamond Plaza, 12 floor, Sky City, Backland. halkaas ay noo ballana. waxaan rajeynayaa inaanu si wacan u sagootino sanadka dhammaaday, waqti fiican oo qurux badan oo wada qaadano oo si fiican u soo dhaweyno sanadka bilowmaya, xasuuso fiicanna si wada jir isaga reebno. waxaan kaloon aad u salaamayaa, aadna ugu mahadcelinayaa dhammaan warbaahinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Nairobi. aad baan idin salaamayaa, aad baan idinku mahadcelinayaa. habeenkaas ay noo ballana insha Allah. waxa ii sawiran sani ii horkeen sanadkaygii noqo sida waalidkay ii soo dhoweey hadda siriq ku jiray degdegiga saar sanadkaygii noqo. maantaada mooyaane ogolina eedada. waxaan dhammaanteen ilaahay nooga rajeynayaa inuu sanad wacan oo khayr qaba inoo noqdo. qofkii sanadkii hore ku xumaa inuu kan ilaahay faraj khayr qaba u furo. dhammaanteenna hamigeenna oo wanaagsan ilaahayna siiyo. calafka ilaadayna maska mar ilaahay calafka ilaadayna. waxaan filayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya ku sugan inay population aad u fara badan yihiin, dad fanka aad u jecel yihiin oo aad fanka u xiiseeya, taageerayaal badan aan ku leeyahay magaalada Nairobi. waxaan habeenkaa rajeynayaa inaan habeenkaas waqti fiican wada qaadano, heeso cusub, barnaamij qurux badan, sawirro xasuusa, fiidiyo xasuusa aan iska reebno insha Allah. waan rajeynayaa in habeenkaas qurux badan soo aragno dhammaanteen. bismillaahi raxmaani raxiim. dhammaantiinba waad salaamantihiin. bahda saxaafadda ee sharafta leh ee maantana soo sharaftay ee halkan noogu timid, taasoo aad nagala soo qayb gasheen shaacinta ama shirka jaraa'id ee uu qabtay fanaanka qaaliga ah ee wada jecel nahay saalax cabdirasaaq saalax sanaag. wuxuu qaban doonaa barnaamij ka duwan kuwii awal looga bartay, kaasoo dhici doona hadduu ilaahay yidhaahdo habeenka 31 bishan aan ku jirno ee December, oo macnaheedu tahay kala wareegga sanadka aan sagootin doono ee 2024 iyo ka soo gelaya ee 2025. habeenkaas oo aan rajeynayno in aan xasuuso ka reeban doono dhammaanteen, ayaan ku marti qaadaynaa dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadan Nairobi. waxaan rabaa inaan ku daro hadalkii uu dhahay Saalax. waxa kaliya ee maanta Soomaalida midayn kara ee dhalinyaradeeda walaalayn kara waa fanka, waa madadaalada. waa inay noo dhisanto warshadda madadaalada, ha noqoto ta muusikada, ha noqoto ta filimada, ha noqoto ta sportska. waa waxa kaliya ee na midaynaya ee Soomaalidu meel walba ay joogto mideeya. waana in aan dhammaanteen ka shaqeynaa, waa inaan taageernaa qof kasta oo hibo leh oo ka soo dhexbaxa jiilkeenna. waxaan rajeynayaa habeenka inaad nala caweyn doontaan dhammaan asxaabtiinna, qoysaskiinna iyo dadka aad jeceshihiin. barnaamijku wuxuu ka dhici doonaa Diamond Plaza 2, Sky City, dabaqa 12aad. halkaas ayaan idinku sugaynaa. waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad iman doontaan. tigidhadana waxaa loo goosanayaa 2 qaab. ka koowaad waxa weeye waxa aan samaynay link oo ticket saasa ayaad ka heli doontaan xilli walba. haddii taas idigu adkaato, martiqaadka wuxuu diyaar idinku yahay albaabka Diamond Plaza habeenkaas. halkaas ayaan idinku sugaynaa. waad mahadsantihiin.